waxaan bilaabanayo howleena insha Allah kalbadiga saddexaad kulankiisa afraad ajandahan waa hal ajanda maanta waxaan inaan dhageysana musharaxiintiina sharafta leh mudanayaal aan isdhegeysano aan fariisano si aan u dhageysano musharaxiinteena u tartamaya kursiga gudoomiyaha baarlamaanka adigoo mahadsan waxaan jeclaan lahaa ajendaha inaad noo ansixisaan su'aal ajenda waa mahadsantihiin aan isdhegeysano waxaan jeclaan lahaa mudanayaasha inay fadhiistaan si loo karaameeyo loo qiimeeyo musharaxiinta kursiga gudoomiyaha u tartamayso adigoo mahadsan si fiican loo dhegeysto haddana insha Allah waxaan ku wareejinayaa guddiga doorashada si ay hawshoodii ay u sii daadiyaan waa mahadsan tahay gudoomiyaha guddiga doorashada kusoo dhawaaw waa mahadsan tahay media waxaan jeclaan lahaa inay fadhiistaan si dadka ka dambeeya ay u fiirsadaan musharaxiinta khudbooyinka jeedinaya adigoo mahadsan qof walbaba programkiisa ha diyaarsado hana fadhiistaan media waa mahadsan bismillahi raxmaani raxiim kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya أنا كنت بحب أنا كنت كوادي بارلانكا اللي بعنا شرفت له ورباعينتا مشاركينتا قبنا كنت كمان قابضة لما أنت محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا كان كسر جيرنا وقتين كوبان وكسبان نوشي أي صوت أبدين ودي قاعد اسمتين مدري عليه مروي وأنا كان كسر بسبينا نوشي أسماء اسمتين أو عين كون عملا دور الشدة جميع قراء شعبك ما ننتي سبت لهاي ذلك النوشي سين مدري يعني وعن سبحان الله تعالى مدري الله كفتك الكوار كنت أو أن فيها لنا حروف بالله جيدا قبل ما يسافر قالوا دورني بدون يقول لك دعوة دور شد بدومية كلا شعبك قالوا دورني سيدا سوسر بدومية وقالوا دورني فلبانو يدو بينه بدون الكلام فلبان زار عبد الرحمن وكان يأكل تجاو حنو دورني فلبان حسن علي محمد أمر سمي sidoo kale guddigu wuxuu isku qaybiyay laba guddi hoosaad kuwaas oo kale ah guddiga guddi hoosaadka diiwaangelinta musharaxiinta iyo guddi hoosaadka shaqada guud iyo maaliyadda mudanaya waxaan u gudubnay fadhigii labaad ee guddiga maalintii axadda oo ay taariikhdu ahayd 22 bisha afraad 2018 isla maalintaas waxaan loo qabsoomay inaan diyaarino jadwalka doorashada iyo shuruudaha looga baahan yahay musharaxiinta u tartamaya xilka gudoomiyaha golaha shacabka iyo shuruuda looga baahan yahay oo kalaasii soo socota waxaa loo baahnaa musharaxiinta inay noo soo gudbiyaan guddiga hor keenaan codsiga musharaxa 2 sawir oo teesro ah taariikh nololeedka musharaxa warqadda iscasilaadiisa ama iscasilaadeeda hadday ka tirsan tahay xukuumadda ama golaha wasiirada sidoo kale iyo warqadda caddaynta bixinta lacag xulaabta ah mudan gudoomiye mudanaya maalintii isniinta ahayd way taariikhdu ahayd 23 bisha afraad 2018
إبراهيم يرو إسحاق. نمبر 2 حلبان علي شيخ محمد نور. نمبر 6 عبد العزيز حسن محمد رفض قريب. نمبر 4 حلبان بروفيسور سالم علي الوبرو. هي نمبر 5 حلبان شيخ آدم شيخ محمد نور مدوي. مدن قدومي مدن أيام سيدو كارك فدقيني أفراد وهي كتب الأشياء الشرعية وهي تعرفوا هاي 34 ليش أفراد مقبول سيدي طبعا وهاي نص ورقة شيء إن استواء مليان سورة كلية الشروطية اللي قرأت هودن للمشرح وكلا حلبان شريف شيخ مايه لو حلبان إدريس عبدي دكتور 6 حلبان محمد مرسل شيخ عبد الرحمن. 4 حلبان شريف محمد عبد الله. 5 حلبان محمود علي يحيى. 6 حلبان إيمان عبد الله العلي. 6 حلبان نوع الدوام الجنيه شرعي. ترى نوع الدوام الجنيه شام. صاروا يعملوا كل حلبان ومشرعوا قدوميها كلها فدرالك قدوميها كلها شعبك دولة فدرالك الصومالي. مدن قدومية مدن أيام عنصر قدومنا إيمانته ويتعرض تعيش 25 بشع فرات لو كريستيني طبعا وعنو هو تلقى لي إلى المشرحينتو كجيديان ومدبدو ذا مشرح لمو لأن لقرر وحلين كسا وكمل المشرحينتو وتكما يغلق قدومية إلى مجيديان اللي بانا ذا ولانو مروا إلي مدن أيام هذا الجيدين تكتب وأنا قيمني لما معلومات ما أنتم عارفين فديو هذا الدورة لحم الشرح وأنا قرأتني هذا الكلام سيدي بسكر الرئيين ما نتوه رئيسي وأنا هذا يعني أنه تواجه إن الشرح مشرح وما نعمل وأنا قلت لك إنه مشرح الديانة أما الله بدي مشرح الديانة وبدك قرار ما نعمل الله وأهل نمبر 6 نمبر 7 إنه يكسر به كلام سيبرر لو تدورتي أفعل مشاكل نقطة تذكارية. وها نروح صدور إلى الديار معي عندما تكتب إلى وها ديار وإنت برد هذا إلى الحلبانة الشنطة إلى المانت كبيرو ونعلو. استاذ نروح صدور وأنا قاعد فلة. استاذ المانت وحاد الدور اللح برد وحاد الدور الشنطة كورقاتي هذه إلى إلى وأنا سيد سكرانية الفرق على معها وسيد الريجستريشن كانوا يبدأ وحق يرسابي سعداء الزمين إليك كلام مرة. حلو سوري حلوان براميرو صاروا سبحانه إن شاء الله تعالى. سيدي عادة قبل عدي وحن مركز لما نبدأ دمارتوا ما نبري وحن تجد إن شاء الله ما نويني لو تركنا ما نتسنين تا أو يبيش صدق معي وهذه اللي أنا عن دورة درنو بدوبيني ولا شعبك دولة الدراسة الصومالي. هذه يقولون كل نوع دمارة ونوع دمارة إن شاء الله. وعن سنة مشرفين معرفة الجمعة هي سبتني حتى إذا يكبروا في السماء سبعة من جمعة ومعلن لبس بليو كلام إذا يكبروا وتاني كل الجمعة لكن مثلا أيام وما سنتي معرجين إلى إلهي نالشيو قدومية نهجة سبعة سنة بلا عندما متخيل أو نقول علينا إلهي توافقين أبسطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشرحينتي أيها الرئيس لوير سيدي بكرة وريان وانا مع سيدي
iyo 10 daqiiqo ayuu qofkiiba leeyahay saasay guddiga soo jeediya waana mahadsantiin soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد قسمها قدوميها أهلا قدومي كحيين كوبات قلها سيهايها قدوميها أهلا قدومي كحيين كوبات قلها شعبك قدومي كحيين كلبات قلها شعبك xildhibaanada sharafta leh guddiga qabanqaabada doorashada guddoomiyaha golaha shacabka howlwadeennada golaha bahda warbaahinta iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed ee warbaahinta nagala socda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib mudanayaal iyo marweyn waxaa sharaf ii ah inaan hortiina ka caddeeyo inaan ku taaganahay oo aan u sharaxanahay qabashada xilka guddoomiyaha golaha shacabka xildhibaanada sharafta leh waxaan idinka codsanayaa inaad isiisaan codkiina iguna aamintaan mas-uuliyaddaas culus aniga oo tusaale ka dhiganaya xikmaddii nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam ee ahayd ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noogu sheegay qur-aankiisa kariimka ah isagoo yidhi بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم taas oo micnaheedu ujeedadeeda ay tahay in muxuu ahaa uu yahay shaksi ammaanadaas xifdihi kara ama ehel u inuu ammaanada ama mas-uuliyadda culus ee uu dalbanayo haddii loo dhiibo uu xifdinayo oo ammaanadaas ilaalinayo kasoo dalaali karo iyo in muxuu ahaa cilmigeeda iyo aqoonteeda uu leeyahay gudashada ammaanada mudane guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh waxaan rabaa haddii aad ii oggolaataan inaan idinla wadaago sababta igu kalliftay inaan xilkaan isu soo taago iyo waxa aan qaban doono haddii alla idmo markaad ammaanada ii dhiibtaan ama aad ii doorataan ugu horeyn aan ku bilaabo taariikh nololeedkayga oo kooban magacaygu waa ibraahim isaaq yarow waxaan ku dhashay magaalada baydhabo 1972 waxaan dugsiga hoose dhexe uga baxay degmada waajib waxaan dugsiga sare ku qaatay magaalada baydhabo waxaan jaamacadda ku qaatay darajada koowaad jaamacadda nairobi ee dalka kenya waxaan jaamacaddayda labaad darajada labaad ee waxbarashadeeda ku qaatay masters degree dalka UK jaamacadda Roehampton ee London aniga oo ka bartay culumta la yiraahdo khayraadka aadanaha istiraatiijiyada cilmiga istiraatiijiyada khayraadka aadanaha ama afka qalaad lagu yiraahdo degree of Masters of Science in Strategic Human Resource Management waxaan golaha shacabka ku soo biiray oo aan xildhibaan qaran noqday sanadkii 2000 ilaa iyo maanta oo aan joogno 2018 oo aan ka mid ahay weli golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya muddada aan xildhibaanka ahaa oo 8
waxaan ka mid noqday shantii baarlamaan ee dalka ka dhismay. waxaan ka qayb galay oo aan wax ka doortay 5 madaxweyne oo ugu horeeyo madaxweyne cabdiqaasim salaad xasan ilaa la soo gaaro madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo hadda nala jooga. waxaan wax ka doortay oo wax ka ansixiyey 12 ra'iisul wasaare. waxaan ka mid noqday golayaasha xukuumadda ee muddooyinkaas dambe la dhisay aniga oo wasiir ka noqday wasaaradda awqaafka iyo arrimaha diinta, wasiir ku-xigeenno kala duwan ka noqday wasaaradda hantida qaranka iyo qalabaynta, wasaaradda dib u heshiisiinta iyo jaalidaha dibadda, wasaaradda warfaafinta, wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka, wasaaradda warfaafinta mar kale, wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo wasaaradda gaadiidka xilka iyo dhulka, wasaaradda amniga qaranka mar kale, wasaaradda boostada isgaarsiinta oo aan hadda maalin hore aan ka cadilay. runtii xukuumadda iyo golaha shacabka in badan baan usoo shaqeeyay. waxaan ka mid noqday intaan baarlamaanka joogay oo intaas dheer 18 sano gudahood aan ka mid noqday guddiyada kala duwan ee baarlamaanka oo ay ka mid yihiin guddiga dib u heshiisiinta, guddiga arrimaha bulshada, guddiga warfaafinta iyo isgaarsiinta, guddiga dastuurka iyo arrimaha federaalka, guddiga miisaaniyadda, guddiga la yidhaahdo maxaa la dhahay arrimaha gudaha iyo amniga iyo guddiyo kaloo badan. aniga oo sidoo kale guddoomiye ka noqday guddi ku-meel gaara, guddi la yidhahdo annual committee oo loogu talagalay inuu diyaariyo nidaam xanaanka ama habraaca guddiyada baarlamaanka ay ku shaqaynayaan oo la yidhahdo parliamentary committee procedure, kaas oo runtii shaqo badan oo baarlamaanka hadda u baahan yahay una baahnaa oo mustaqbalkan u baahan yahay soo qabtay. procedureka ay soo diyaariyeen golaha baarlamaanka laga ansixiyey halkan goolkan aan fadhino sanadii 2010. runtii khibradayda baarlamaan iyo khibradayda shaqada dowladda qaranka aan u hayay dalka waa mid runtii aad iyo aad u ballaaran oo muddadaas dheer oo runtii muddo lagu qaangaaro aan qaatay oo aan sahlanayn. waxaan ka qayb galay muddooyinkaas oo shaqada qaranka aan ku jiray in ka badan 30 aqoon isweydaarsi aqoon kororsi oo runtii kor loogu qaadayay ama sare loogu qaadayay tayeynta xeerdejiyaha ama sharci-dejiyaha ama xildhibaanka. mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh, mudane guddoomiye, aniga oo kaashanaya waayo aragnimada aqoonta dheer ee aan u leeyahay shaqada golaha ee aan kor kusoo xusay, waxaan ku kalsoonahay inaan ahay musharaxa ugu habboon ee marxaladan adag ka gudbin kara golaha shacabka. mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh, haddii aad i doorataan oo aad codkiina isiisaan, waxaan idin xaqiijinayaa inaan noqdo hogaamiye mideeya ah, madax bannaan, isku kalsoon, dhexdhexaad ah, ku haga dariiqa uu nafarayo dastuurka iyo xeer-hoosaadka golahan uu leeyahay. hogaamiye dhexdhexaadka ah, afkaaraha ay ku kala duwanaan karaan xubnaha golaha oo sababta loo doortay ay tahay inay waajibaadkooda ay u gutaan si dimuqraadiya oo madax bannaani xoog leh ay ku jirto. taas waxay aasaas u tahay ilaalinta haybadda golaha shacabka, waxay aasaas u tahay ilaalinta haybadda iyo karaamada golaha, iyo sidoo kale ilaalinta mudnaanta ay leedahay sharafta, xuquuqda, daryeelka iyo xasaanada xildhibaanka. mudanayaal marwooyin xildhibaanada sharafta leh, haddii aad i doorataan ood codkiina iyo kalsoonidiina siisaan ood ii doorataan guddoomiyaha golaha, waxaan xoogga saari doonaa dardargelinta
waajibaadka iyo awoodaha golaha shacabka oo ay ugu horeeyaan matalaadda dhammaan shacabka Soomaaliyeed, la xisaabtanka hay'adaha fulinta, sharci dejinta iyo korjoogtaynta hay'adaha fulinta kuwaas oo ku salaysan nidaamka isdheelitirka awoodaha ama habka qaad ugu yidhaahdo the system of checks and balances. mudanayaal marweyn xildhibaanada sharafta leh muddadii uu shaqaynayey golaha shacabka waxaa u qabsoomay wax badan oo runtii la taaban karo. sidoo kale waxaa haray oo inoo yaala waajibaad iyo mas-uuliyado culus oo muhiim u ah jiritaanka nidaamka dowladnimada, sida dhamaystirka dastuurka qabyada ah ee qaranka, dib u eegista garsoorka, doorashada gaarsiinta dalka doorashada 2020 xaqiijinta doorka golaha shacabka ee ku aadan siyaasadda oo ku salaysan siyaasadda qaranka aan idhaahdo xaqiijinta doorka golaha shacabka ee ku salaysan jaangooyinta siyaasadda qaranka, dib u heshiisiinta iyo soo celinta midnimada dalka, taas oo ku salaysan ama saldhig ay u tahay isqancin, isku garaabid iyo isu tanaajul. xoojinta xiriirka iyo wada shaqaynta ka dhexeeya golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, dardargelinta howlaha shaqo ee guddiyada golaha, dhisidda guddiga adeega baarlamaanka, sare u qaadidda tayada aqoonta sharci dejineed ee xubnaha golaha shacabka iyo shaqaalaha baarlamaanka. waxaan ku dadaali doonaa in la dedejiyo dhismaha xarunta golaha shacabka oo baahi weyn loo qabo oo runtii aan suurtagalahayn sidaan hadda aan ku jirno inaan ku shaqeyno. xoojinta xiriirka golaha shacabka iyo baarlamaanada adduunka ee aan xiriirka dhow leenahay. mudanayaal marweyn xildhibaanada sharafta, waxaan rabaa inaan dul istaago qiimaha ay leedahay haybadda iyo xasaanadda xildhibaan kasta oo ka mid ah 275 mudane wuxuu xambaarsan yahay sharafta iyo karaamada in ka badan 50,000 oo muwaadin Soomaaliyeed. sidaas daraaddeed ayuu dastuurka qaranka u jideeyey una muxuu ahaa addeeyey inaan lagu xadgudbi karin lana baari karin oogadiisa iyo hoygiisa. mudanayaal iyo marweyn xildhibaanada sharafta leh, waxaan mar labaad iyo mar saddexaad magad idinkaga ah oo si xushmadi ku dheehan tahay idinkaga codsanayaa inaad codkiina siisaan oo aad igu aamintaan mas-uuliyadda hoggaaminta golaha shacabka oo ah runtii mas-uuliyad ammaanadeeda uu isha ku hayo, eegayo run kasta meel kasta ha joogeen ee Soomaaliyeed oo aan wakiilka nahay. idinka oo tusaale ka dhiganaya xikmaddii ku jirtay qisadii nabiyullaahi Muusa calayhi salaam ee ahayd أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن خير من استأجرت القوي الأمين. sidaas daraaddeed mudanayaal codsigayga oo ah inaad ammaanadaas culus idinka oo igu hagaya oo aan idinku daafihinayo rabitaankiina iyo codkiina iyo sharaftiina baarlamaankaas isaga oo isku dhan oo muxuu ahaa ka madax bannaan awoodaha kale ee dowladda si dimuqraadiya u shaqaynaya, kaalmaynaya dhismaha qarannimada Soomaaliyeed inaan gaadsiino muddadii xilkana loo cayimay annaga oo ka tegayno magac iyo maamuus dhammaantayda insha allahu tacaala. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. qofka xiga ha la waco yaa xiga
dhammaan wasiiqaha guddoomiyaha sharciga u hadlaya maantani bada dhammaan mudanayaasha golaha shacabka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu iga guddooma salaantiidan oo qaaliya mudanayaal maanta waxaan golaha sharafta leh hortiisa aan ugu imid inaan rasmi ahaan aan idin wargeliyo inaan ahay musharax u tartamaya qabashada xilka xafiiska guddoonka golaha shacabka Soomaaliya iyo inaan idinka codsado inaad igu taageertaan oo aad u fiirisaan sababaha igu kalifay inaan u istaago qabashada xilkan culus waxaa ka mid ah kadib markii aan qabiiliyey gaar ahaan howlaha culus ee shacbigeena ka sugayo golahan iyo guud ahaan arrimaha muhiimka u ah horumarinta dalkeena iyo dowladnimadeena iyo codsiyo iga yimid xildhibaanada saaxiibaday oo aad u badan oo ka tirsan golaha taas ayaa igu kaliftay inaan isu taago jagran inaan tartamo si kalsooni buuxdana waxaan aaminsanahay in xilka uu yahay ammaano iyo xaal adduun iyo aakhiro laisweydiinayo ayna waajib tahay in loo guto si calakaabsi ah oo daacadnimo iyo xisnimo ku jirto ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أمانة تدعوك إبورة الدين runtii maanta waxaa muuqata in anagoo binaadam u tartamayno ilaahay aan ku shakiro mudanayaal haddii aad idinka waramo khibradayda iyo shaksideeda qof ahaaneed oo aan idinka codsanayo inaad musharaxnimadayga ugu qiimaysaan qodobadan soo socda mudanayaal muddo 14 sano ayaan ka tirsanahay baarlamaanka Soomaaliya taasoo iyo isku bigelisay inaan soo kasbado khibrad ku filan iyo fahamka hogaaminta golaha shacabka sida aad ku arki kartaan baarin nololeedkayga idin horyaalo waxaan ahay qof aqoon iyo khibrad u leh shuruucda iyo qawaaniinta taasoo xidhiir toos ah la leh fulinta xilka sharci dejinta golahan sidoo kale waxaan ahay shaksi khibrad u leh arrimaha maamulka hay-adda iyo waayo aragnimo aan ka soo kasbaday 12 sano aan soo maamulay wasaarado kala duwan oo ka mid ah xukuumadda federaal sidaydaba waxaan ahay qof jecel iskaashiga aada u qadiriya wadatashiga iyo wada shaqayn mudanayaal haddii aad siisaan kalsoonidiina digsi aan sideeda aan jecelahay inaan ku hogaamiyo howlaha golaha iyo arrimaha ku muhiimsan oo aan u arko inay mudan yihiin in diiradda la saaro waxaa ka mid ah dhammaystirka geedfalka dastuurka dastuurka waa heshiis bulsho sidaad la socotaan waa daqiiqa qawaaniinta dalkeena sidaa darteed waa muhiim mudanayaal codka musharax waxyar mudanayaal raalli ahaad aan dhegaysana musharaxiinta khudbadooda adigoo baatan hala karaameeyo hala qiimeeyo khudbooyinka hala dhegaysto adigoo baatan aamusa hala dhegaysta musharaxiinta khudbadooda adigoo baatan تفضل ناشد الجمهورية لما تلقى الصوت كويت الأمنية وجدت يهرمنت من نمط شعب الصومالية يدبجستين ينبغين البرشلة وبنت الغالة ورمرت علماء أديك البرشلة وقبنايو وعن أخبار أرمات مهمة وعن كالحريم وشدوا أي تهاي المهمات هو تسيو سيبر برصعنا وقبضوا mid walbana nooga baahan inaan u abaarno xilka gola ahaan looga abaarno haddii aan mid kooban aragtideeda wax idinka sheego waxay ila tahay dhammaystirka dastuurka waa xil labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo toos ugu xilsaaran yahay oo nooga baahan inaan si toos ah oo aan u abaarno aan gabasho iyo gaabis lahayn kuna madarsano in asagoo dhammaystiran ugu dambeyn gibroodkiisa soo afjarmo December 2019 xoojinta midnimada shacabkeena waa hawl ballaaran oo nooga baahan in aan si dhab ah oo daacadnimo ku dheehan aan u gudagalno kana guulgaarno waxaan u qaybin karaa 2 qaybood oo ay ugu horeyso inta wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland waa laga maarmaan in uu howlgelinta midnimada ummadeena iyo wadajirka dalkeena la siiyo mudnaanta koowaad oo ay ugu horeyso dib u soo nooleynta wada hadalka gobollada waqooyi galbeed Soomaaliya iyo Somaliland
oo loo gudgalo looguna gungaaro si ay ku jirto daacadnimo wadannimo midnimo jacayl haddii aad kalsoonidiina isiisaan waxaan balan qaadayaa inaan u howlgalo idinkuna taageertaan inay dowladdu yeelato siyaasad cad oo nidaamsan oo baarlamaanka federaalka soomaaliya soo cad ku leeyahay aan dejino kuna howlgalno qaybta labaad waa dibushiisiinta iyo nabadaynta bulshadeena waxay iga tahay inaan u baahannahay in kursigeena xaqiiqa raadinta dibushiisiinta iyo haddii xulinta aan u horno wax kasta oo dul dhaqaale ah si uu u howlgalo una sameeyo daraasad dhab ah dadkana soo taliya arrimaha sababa iyo sabaha loo xalin karo khilaafaadka kusoo noqnoqda bulsha dhexdeeda taasoo noo suurtageli karta in aan u howlgalno istaraatiijiyad cad oo dibushiisiin dhab ah iyo nabadeyn waarta aan dhexdhigno bulshadeena ayadoo lala kaashanayo hay-adaha dowladda iyo waxgaradka bulshada sidoo kale waxaa loo baahan yahay in diiradda la saaro shuruucda kale ee loo baahan yahay in diiradda la saaro waxaa ka mid a shuruucda ku saabsan nidaamka dhismaha federaaleynta maxkamadaha lacagta garsoorka dib u eegista anshiyeynta shuruucda lagu dhisay hay-adaha amniga iyo difaaca qaranka dejinta ansixinta iyo meelmarinta sharciga doorashooyinka hay-adaha qaranka dhiirigelinta axsaabta siyaasadeed sharciga jinsiyadaha dejinta sharciga maqaamka magaala madaxda qaranka ee muqdisho mudanayaal dhammaan shuruucdaasi waxay u baahan yihiin inaan si gaar ah diiradda u saarno dejintooda ansixintooda iyo meelmarintooda laga marmaana tahay in aan ku soo afjarno ugu dambeyn December 2019 ama qiimo ka dawmarin kalfada toddobaad ee golaha haddii aan idinka warramo aragtideeda ku abaaran arrimaha u gaarka ah golaheena mudanayaal haddii aad kalsoonida isiisaan waxaan ballan qaadaya inaan si buuxda oo joogto ah u ilaalin doono kala socnaanta awoodaha dowladda oo marna aan ogolaan doonin in laamaha dowladda midna mid kale ku xadgudubto waxaan ballan qaadayaa inaan si buuxda oo joogto ah u ilaalin doono madaxbanaanida baarlamaanka xasaanada xildhibaanada iyo xurmada xarunta golaha aan marna lagu xadgudbi karin waxaan ballan qaadayaa inaan xurriyadda iskaqiibashada xildhibaanada la xakameyn xumaana ka soo gaarin waxaan ballan qaadayaa inaan horumarino xiriirka xildhibaanada iyo dadweynaha deegaan doorashooyinkooda waxaan ballan qaadayaa in si wax ku ool ah wax loo qabto iyo dhisinta xildhibaanada kartida xildhibaanada waxaan ballan qaadayaa inaan sii horumariyo xiriirka baarlamaankeena uu la leeyahay dhammaan baarlamaanada caalamka waxaan ballan qaadayaa inaan dhiso guddiga adeega baarlamaanka kaasoo aad muhiim u ah howlaha baarlamaanka waxaan ballan qaadayaa inaan xoojiyo howlaha guddiyada iyo guddiga joogtada sidoo kale waxaan ballan qaadayaa inaan horumarino howlaha hofciinta iyo soosaarka laanta maamulka golaheena iyo sarwaqaadida kartida horumareedada iyo shaqaalaha golaha waxaan ballan qaadayaa in wadatashi iyo wada shaqayn joogta ah aan ku yeelano xallinta arrimaha siyaasadeed ee dalka lasoo gudboonaada walaalayaal mudanayaal sidaad maqlaysaan ballanqaadadeeda aad u badan yihiin ma fuli karaan haddii xildhibaanada aan garabkeedin xildhibaanada iga usu duuban waxaan codsanayaa haddii ilaahay ii nasiibo inaan kursiga tago intaan asoojiya ballanqaada inay garab muujiyaan fulintooda ugu dambeyn mudanayaal si wax mustaxiil meesha ugu baxo waxaan rabaa inaan in xaqiijiyo ma jiro qofki wata ama aan jeebkiisa ku jiro aan ka ahayn allah subxaanahu wa tacaala ma jirto hay-ad dowladeed u wadata aan ka ahayn golaan sharaf kale ee shacbiga soomaaliyeed waxaan mar kale idinka codsanayaa inaad kalsoonidiina isiisaan wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan leeyahay sharaxa ومعصية سبحان الله يلا ويا روحهم هي مشارع بسم الله الرحمن الرحيم مشرح ومعصية هاي مجالي محمد وحرمنا هنا ويرنو مشرح التدحات ونوب ورن أجندها الجوان محمد عزيز حسن محمد لفظ قريب فليتفضل دور ورا
بسم الله الرحمن الرحيم. يا جمهوريها كنت بدورشوينك جمهوريها كلها شعبك إن معنا الشرف له صحافتها شغالها برلمانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى السلام حلي الإمام عبد العزيز حسن محمد رفيقرين معنا المشرف الساهر حتى إلهي يراهو أنت جمهورية كلها شعبك معنا المشرف الساهر حتى جمهورية كلها شعبك حتى إلهي يراهو أغسطي في الاستيطان وهذه الشيء يا مدن يا رجل مشرح نظام الدنيا وراح شعب مشرح نظام وحيكون ليه في الديوانات كمية صاحبة والديوانات حسن كمية إذا يكون ليه نظام شعب مشرح كمية وفقط الشيء تلقى كمية الكفرة الديوانات عن صاحبان هاي هل كان فضيو وعن كما هدرين يا برأيك الدين والجيل وعن إلهي كهجين يا إنه إلهي حكمت مرتاد وقفة ومن هناك يوم هذا فريقان مدرجة وحان هاي الإيمان تحييكينا وإذن كميدا حتى آخر كميدا ورطان وحان أحانا يا تحييكي إذن كدو وقصة بيو أركترينا أفكارينا سيدا أفران وحشمت له أيان هو المعلومات كالشقاء كدوك إلا وداد دولا هاكم كي يروحوا نغن دولا ترى يتشي ولا رياض وحان منتي كران كيغا كد داري دولا جنان كاشرة يبردينا أبوانتينا ويارغنبدينا قفق يوضا عامة وحان ينكوه قادم دولا دين كدوني دولا ترى يبقى كعادلينك يدي رشاد أفايك برلمانك واجبات كيسا شباب هي مسؤولين كيسا وحي أمر يستعملوا تحت كأهالا دوضها هي أجندها برلمانك عنيكو مستع تحجرين عيو وعنكو كان يا دور كالشرطيات قسما ودواتتك وعمل برلمان واجبات كلها شعب ولا يا رسيلا نحن هاي كلها شعب وأساس كتلتان كثر النمال اليوم دولة النمال تلقى وهيئات الكلية حيثتهم مثلا الصوصة شعب الصوماليات وهو يد الدولة النمال هي أبوته إلى ذاك الدولة وعن ضمان كان مساسيك أنها إنكو أهل في هاي الأسف وقوة الرئيس لو قوة السهل إلى الدولة أهل ذلك الجنة وعن قوى دليل كثيرية نوفرا ومن ذلك الرب يمنع يحدث كاسمها قرن الصوماليات يدول الدولة وارثة من أي سهيل وأركان الشرعية رمين الشرعية سرين الشرعية يسكو معمولين الشرعية مدنيا ورايا صومالي وحي كما ماذا ممكن يجي للصوت في أموي واحد صوت على مكرته وحان عليكو درين سن إنا تمان في الحكم قال كثيرين اسم الدين الله أجل تنموي كي سينفر من البرلمان في الخطبات سيدات يكيب تقالات ورايا بمان اسم الدين وحي كما علي إن برلمان والبط قبل يستجيبون حلكو دي والإنجليز أي كوحير فرمروكسدان كلني ذلك وكالتي شرعي أهي كتبانه شعب حكومة تلاهين لا انقلاب برلمانك عدتو سوى كلني يشرعيتي كالكوكة ينوع بسوء كتبانه في إيمان أيام عن صوبة نجي أيام يستوى أفضوبي وحال الجيجي بغاتي midkii xigay waxaa la geeyey kambaala kii dambeeyey waataan soo ogay madashii ayaa arkay waxaan mudaya
waxaan mudanayaa ballan qaadayaa in haddii aad ii doorataan uu baarlamaankan ku guulaysto inuu salka ku dhigo oo uu tusmeeyo shubta wax oolka ah ee xilliga kala guurka loo baahan yahay taasoo sifo sharciga ku dhisan oo aan afduub ahayn sidii aan taas ku samayn lahayn waxaan waa inaan taariikh xildhibaanada sharaf kale mudanayaal sidaan ku tilmaamay qodobka 69aad ee dastuurka waajibaadka xildhibaanada golaha shacabka waxaa ka mid ah matalaadda shacabka xisaabtanka hay'adaha dowladda guddiyada madaxa bannaan samaynta sharciyada ansixinta heshiisyada dowladda Soomaaliya iyo dhinaca ka tahay iyo meelmarinta xeerka iyo shuruucda ururada caalamiga ah ee aan xubnaha ka nahay walaalayaal haddaad ii ogolaataan waxaan idiin soo jeedinayaa talooyin ku aadan gudashada saddexdaas waajibaad ee matalaadda shacabka walaalayaal golahan shacabku sida magaciisa ku muuqato waa matalaadda shacabka Soomaaliyeed qiyaastii halkii xildhibaan waxaa wakiil uu ka yahay 50 kun oo xildhibaanada mar haddii aan wakiil ka nahay 12 milyan oo shacabka Soomaaliyeed ah oo aan garan karno xaaladda iyo daruufaha ay ku nool yihiin xaaladda iyo daruufaha adag ee ay ku jiraan oo abaar leh oo gaajo leh oo barakac leh oo nabadgelyo xumo leh oo daryeel xumo leh oo caafimaad darro leh waxaan qabaa tallaabo kasta oo aan qaadayno inay noqoto mid ka turjumayso maslaxadda iyo danahooda xisaabtanka xukuumadda sida ku cad qodobka 69aad ee dastuurka xisaabtanka xukuumadda waa qayb ka mid ah waajibaadka baarlamaanka waxaan qabaa inaan waayo aragnimo iyo casharo ka soo qaadanay dowladihii iyo isbedeladii faraha badnaa ee dalkeena soo maray xildhibaanada waxaan qabaa haddaad ila ogolaataan inaan dhaqan cusub ku soo kordhino oo la xisaabtanka xukuumadda oo mas-uuliyad iyo xisaabtanka lagu adkeeyo hay-ad iyo qof waxaan si joogto ah u korjoogtaynaynaa islamarkaana kula xisaabtamaynaa howlqabadka guddiyada iyo hay-adaha madaxa bannaan ee dalka walaalayaal saamaynta sharciga waa waajibaadka ugu weyn ee golahaani u xilsaaran yahay waxaana haddii aad doorataan dartar xoog la gelinayaa dib u eegista dastuurka iyo turxaan bixinta qodobada leh muuqaalka soo horjeedo waxaana si wada jir ah ugu dadaalaynaa inaan iswaafajinno macnaha iyo erayada qodobada dastuurku ka kooban yahay waxaan ilaahay idankiis rajaynaynaa in bilo kooban gudahooda aan ku soo gaarno dastuur iswaafaqsan oo sidaan mugdi ku jiro u qeexay waxaan sidoo kale u howlgalaynaa inaan xukuumadda ku baraarujino oon ku dhiirigelino in waajibaadka kaga aadan diyaarinta mashaariicda sharci ay door aan gaadis lahayn ka qaataan dhanka kale sida sharciga tilmaamayo xildhibaanada baarlamaanka waxay dankooda ay ka qorin karaan mashaariic sharci waxaa qaba in kaalintaas ay muddo ah naga maqnayd walaalayaal waa xilkiina waa mas-uuliyaddiina gacan ayaa idinku siinayaa min fadlakum buuxiya doorka shariifka ah ee adeegiina xildhibaanada sharafta leh walaalayaal saamaynta sharciga waajibaadka ugu weyn ee golaheenu ugu xilsaaran yahay waxaan haddii aad doorataan dartar xawla gelinayaa dib u eegista dastuurka iyo turxaan
xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku codsanayaa inaad codkiina siisaan waxa uu qorshahaygu yahay waxay tahay waxaan ahay nin aaminsan sharciinta sharciga kuna dhaartay ilaahay hortiisa inaan ilaaliyo dastuurka dalka ee roosaadka golaha iyo shuruucda kale ee dalka ku yaallo waxaan jeclahay inaan ka dhameeyo dhaartayda waxaan ahay mideeyo aan kala qaybin doonin xildhibaanada golaha shacabka iyo ilaalinta midnimada golaha guud midnimada golaha guud ahaaneed waxaan ahay garaad shirgudoomiye keliya ee aan xilka ku gorgortamaynin wax gooni aan ku goosan doonin aniga ii gaara waxaan ahay nin ku fiican la tashiga sidaa daraaddeed xildhibaanada haddii ay codkooda isiiyaan ma noqon doono nin u taliya ee waan la tashan doonaa mar walba waxaan ahay nin difaaci doono go-aanada xildhibaanada golaha shacabka ay gaaraan anigoo aanan ku simaynin mas-uuliyadda mar aad ii simataan oo aad codsigayga aqbashaan anigoo ku rajaynayo kuna daweyn in aad kalsoonidiina siin doontaan haddii adag irgaar waxaan fursaddan maanta ka faa'iidaysanayaa halkan ugana mahadcelinayaa gudoomiyihii xilka iska casilay mudane maxamed sheekh cismaan jawaari oo meel wanaagsan soo gaarsiiyey rajadii uu xilka gudoomiyaha golaha shacabka uu hayay wabilaahi tawfiiq aad iyo aad u mahadsantihiin xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan uga codsanayaa inaad codkiina jirtaan aad iyo aad u mahadsantihiin waa mahadsan yahay sharaxa qofka xiga Profesor Salim Aleuino. Yeah.
سياسي حق المعارضة إنه بعد بدنا نسميه وأبغى نوصل عليه لكن عارف نسميه من عارفين يقول أبو عليه عملات وراني أن أعطي عملاتها أعطي مكان تسوق عليه كسري بندي هي مكان أمان رحكة وتك رحكة يا سيدي عن سوق يكون جواب والله يمكن يكون تدعي أنا وأنا كمل جيل عن سيري غير الشرط عن سيد أبو يامن ورياج وجد مكان زي يوسف عن سيد ومن كانها شو تعطي ترتيشن في اللوج توقف وحكم القضية كل يصلح مكان جريء ولي أصبح قبل محكم القضية حكومي في مكان كها مكان سمينا هاي تدعى على حكومة قول السيد ولا عمر عبد غالب عمر السهان يا أولي كل سوق كارو عكس مكتب كهي الجامعة كها حكومة تدوب عليه مثلا العين الغاسم طبعا تدوب النصيب ذات مجال وزير بعجال وزير الدول إلى وزير دول الصيد البقاء الشيء كان سوغ الفني الجهاز حكومة الصنوية الصعودية وزير ذات بعجال وزير انت انها على ذات بعجال حكومة سيد السيد وعن سوق السيد إلى الكلام ذات مالية ذات عن العلا ذات عن الشيء ذات بشر المهدي في المجالات وذات الشغل انت تعقد الجوي من شغل تدوق عايز من شغل الجنة برنامج هنا شهر برنامج هنا لو كل يوم من يولي حقيقة يقول لا بحي وعن هو النقل برنامج الجمهوري عن حكومة الإسلام غير هذا الشاب ولذلك أحبس عنك وزير ناس حتى اليوم توصلي ويوصل إلى هذه معنا في شيء هنا هو قدر الله برنامج مختلف حتى المعارض حول أي أنا أشتغل في حكومة هذا الوضع صعبين ودول صعبين فيها عمل برنامج في ذلك أنا غير فيها وزير استمر في ذلك انت قلت عليه عن هاي فيك أول شيطان ووضع كان مطمر كرسو بلاوضي ينعم الصوت إلى ممكن هذا الجايز فقلت هذا على تبرد أقول جمهوري موجود أمام دي كثير يبسل كيف يا إستنسل يا إسلامية تعريتي كان تعدل أن تعدل وطن وحالوا إلى الشيء أنتي إلهي بعد وطن هذا إلهي مصر إيكي سوطاوه من الوطن إلى فوجدهم ولسلسل وليعيش عن هذه الإحكالات ولا كل أنتم والجزء من الاثنين إمكانيات هوية معبودية هنا هو الجنوب إلى السومات والله يحصل في الله يقول هذا فعدوا الله حوجنا الهيئة كثر سلام الخير وهي أول مرة جاءنا ورجال سكة إنت أصلا سنة بصوت جديد مرة فتحة بصوت جديد شخص عنك السليم سلطان تتكامل تتجير تتعجمت كل واحد يتكامل أنا عندي توجيه أقول وعم صبر بالي خذ وهم تقول بالي خذ ومتصفين لي خذ زم جزء معنا نقل معنا لا معنا شوف الآن وسوي حاضر كتاجر كتاجر برنامج وحال سليمة وحال سليمة ما سعنا من هاي أنا قبل كدوني تو صاور كذا قبل كذا هاي جو كيرت تاجر يصير كمان أنا وأنا هاي قبل نبيفة فكذا ما له عوائد ولي ذلك هذا ممكن هكذا عن صوتها بناء وعمل ذاتها حلتها صوت وعمل ذاتها حتى إنها هي
سياسة سيئة سنة الله من تحت الهد والإسلام جاهز يوم وحيالي دول شغل على الدعدلون شغل على يوم كردي أوران أوران لي نريد تاس وعيكين إسا إن حالة ديالة الصور وحالة إنطوري معنا يا دولي بناجة ما هو بناجة عاد نوع هنا هوسك عليهم أيام دولت ما اسمعنا السعيد الشرعي وارتك المتمصر أن تستحنا بالبني ولا وزير الأكل ولا شعب الأول فيه حتى ولو هي على جديد حوالي إن وطن كان مامور الله يلقى كان حليفة ما تقول كده أنا وعينا أمور إن في القرآن جميعنا كبلا إن القرآن روديو من القرآن كم روديو من نبيك وصاب كمنا وأداعة هنا كبلا كان بعيد عن سمينة أنت سمينة وقال شركة عبد الكريم يوم عن سمينة سمعت ذلك أنا هذا أنا هذا كملي ولي هذا بيان محضر باكستان سمينة السعودية دام موجود شركة عبد الكريم ومسلمات كردي موجود هنا يطبق ما أنت عن أمثال هنا أوديونه ومسلمات كنيسة هذا تحسها وهذا كلها الأجل هنا أوديونه تابع المدينة أي مع الدينة شركة كردي هنا يطبق فحتى لو هذا الشيء أنا ترابط الهيرو أنا أتوقع وحب كارك دوك لو دورته يتوقعني هلا يتوقع للوضعية هاي وكذا وهي ما تمشي على التعيين وانتو سؤالك لنقول انتجن وأعرف الشغل ده طيب حتى ما تقول غيرها الدين طب أتوقع على مثلا الدين طب أتوقع أنا أنظر طب أقول طب رزق ولكن الناس يقولوا غيرها أنا مثلا ما أكيد يعدون نسبة فشو الثانية أرمان إن كون إن أتوقع عشان أستأجر شعبي الجديد وهاي وأنا ما بفكر وهذا في الفتنة أنت عارف هذا الحسنة إن إيش يعني عن هذا حكم الزيادة حكمي هو مش الجواري كودنا يعني اللي بدينا وتجد وأكيد شعبي برلمان التراوز بدأ يوم سبعين عملية برلمان في تفتيح إن هورا هو بدينا بس هذا هو سجل برلمان أكثر من يوم سبعين وحتى لا يأتي لكم وعيالهم منك عن بلغارة حسان إدمان الصلاة شعب وجود بعد وجود الحاكم قلت الصلاة ناس تسوق مكانك وحاولت أن أنا عزيزة إدمان يكونون البرنامج كده وحان تدريجين تدريجين دوران وكانت البرنامج كله يتمين دوران اسمها محكمة الدستور بعد الوضع من محكمة الدستور كلها وضع تمام شركة اليوم قبل سنين الدستور هنا تمام التسمية الثانية للتدريب يوم تمام الله هنا مهم قالوا لي هاي كنت عليك برنامج وأنا كنت مهمة أنا مغنى وقمنا أغسل السميرين معروف عنها وعلم أفضل الآن إن أنزلت الجميع السميرين عليك كنت أبيك برنامج إلى الحجر إلى الحجر اليوم أنكوت أبنى هريد برلمان دول كوميونيتي وهو شعب برلمان فدرالي إلى أفضل إذا قلت قول السيد قربات سيدك هو ولد ولا شعب أبديت الأيد جلده فرطعون أبد اليوم هنا عليك فرمالك أستطرق وعكذا لا شعب أو أنا بسرعة أما سالك دون شركة
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في حياة الدنيا قضاء الشعب إذا على قضاء الشعب قضاء الشعب صحابة أمان مكسرة كسر الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Menurut kedua melihat syarat selek, maka orang waham mahabbah ilahi losi fikiriyah, inan masa orang arba'ah, hari itu bayan tahi, salat ini insan lalu polis itu, tidak ada subuh ni malu, orang ketika ketika kita ulun kita para maka soalan Jamhuriyat Federal Somalia maka waxaan u mahadcelinayaa guddoonka iyo golaha guddoonka iyo guddiga qabqaabada doorashada guddoomiyaha golaha shacabka xildhibaanada golaha shacabka oo fursad qaali ah noo siiyey inaan hortooda soo istaagno annagoo ka codsanayno inayna siyaan codkooda intaas waa ay wardhac maadaama khudbadee aan soo qoray khudbadayda waa dhammaanka waa loo qiibinayaa meesha ka abaysan doontaan marka waxaa rabaa maadaama daqiiqadan ay yihiin waqti inaan soo kooba yaan isku dayaya marka koowaad waxaa rabaa inaan isbaro xildhibaanada sharafta leh inaan isu sheego ummadda soomaaliyeed waa kuma xildhibaan sheekh aadan maxamed nuur xildhibaan sheekh aadan maxamed nuur magaca hortataan idin sheego sheekh aadanka ma aha magaca markaa la sheegay bixiyey waa magaca aan ku udaystay markii ilaahay aqoonteeda isiyey oo maaragtay aqoonta islaamka aan wax ka bartay ayaa ii bixiyey sidaas waxaa magacaas aan helay waan ku guulaystay in la ii magacaabo 1977 ayada oo markaas shiicii kutubada loo aqrinayo caalimka ahaa ii edmay inaan تلاميذي متعدين كده تدمت إلى أن أنا أقول كتبه وصوافيه إني مكاسب مجعل شوي فهي شغال مجعل صار وما هنا نعم يصلي يجي عليه شخص يجي معها صار في البلاد وحنا هاي قبل من العلوم الصومالية وحنا كلامنا إن الموضوع يدل المرض وحيانا فوق هو يعلمني عن غيره waxaan rabaa ilaala sharafta leh inaan idin sheego 2000 ilaa 2004 ilaa hadda waxaan ahay xildhibaan qaran xaqiiqdii aniga sabtii asaga jabuuti xildhibaana liigu soo qoray kama qiibgalin ooba waxbaan saluugsanaa ma aadin waxaa lagu qoray dadkii dambe xamar yimid qof aan qaraaban ugu bedelay aniga waxaan yidhi aniga ma aadi karo maaragtay xildhibaan kala lagu qoro maahina soolkayga waa igu soo qoreen xaqiiqdii maamulin soolkayga 2003 ilaa 2005 waxaan ku fadhiyey adig iyo ummadda soomaaliyeed mas-uuliintii markaas joogtay iyo sidii soomaaliyeed dib u heshiisiin ummadda soomaaliyeed ee waddanka kenya lagu qabtay 2010 waxaan noqday 2004 waxaan noqday wasiirka garsoorka dowladdii ku-meelgaarka ee Soomaaliya yaan noqday 2010 waxaan ahaa waxaan ii doortay 2007 bishii koowaad January 2011 waxaan ii doortay guddoomiyaha golaha shacabka ee ku-meelgaarka ahaa ilaa 2010 bishii shanaad guddoomiyaha xilkaas yaan ummadda ugu shaqaynayay 2010 waxaan ii magacaabay wasiirka dekedaha iyo ra'iisul wasaare ku-xigeen xukuumadda kaas jirtay 2008 December 27 ilaa January 31 waxaan ahaa في هايها مدحوينها جمهورية Soomaaliya
kadib markii uu iscadilay allah u naxariistay madaxweynaha sharafta badnaa mudane cabdullaahi yuusuf oo markaas garwaaqsaday inuu maaragtay iska cadilo marka aniga ilaahay waxa igu guuleeyey maaragtay si dastuuriya markaan heerka la wareegay inaan isu keeno dowladdii federaalka ku-meelgaarka ahayd iyo maxaakiimtii ururkii la baxay ee aare oo markaas mucaaradka ahaa inaan isu geeyo anigoo daba xil isla hayo kii guddoomiyaha iyo kii madaxweynaha jabuuti inaan isugu geeyo yaa ilaahay igu makaniyey taasana dowladdii kale lagu soo dhisay baarlamaankiina maaragtay lagu kordhiyey sanadii horle hadalka oo markaan soo koobo waxaan ahay walaalayaal saacaddan hadda ah ee dagaal qaran wasiir hore oo wasiiran ku soo shaqeeyey gudoomiye baarlamaan oo heerkaas ku soo shaqeeyey oo waayo aragnimad aad u dheer u leh madaxweyne muddo kooban aad ka yaraatay laakiin si dastuuri u qaatay 33 camarood heerkaas hayay waxaan kale maanta sharaf oo aan runtii aan aad ugu faraxsanahay ahay qof ilaahay culumta islaamka wax ka baray magaca sheekh gaari yaan ahay horta isbarashadii waxaan rabaa inaad sidaas ii fahantaan waxaa jira waxaan idin kormarayaa go'aamadii masiiga ahaa intaan xilka hayay aan hogaamiyey oo baarlamaanka iyo markaan masiis ahaaba aan ummadda soomaaliyeed u soo kordhiyey baan rabaa hoogo inaan idin dulmaro walaalayaal nidaamada sharafta leh guddoomiye iyo mudanayaasha sharafta leh aniga waxaa ilaahay ku guuliyey oo aan go'aamadaas soo hogaamiyey ugu muhiimsanaa markuu madaxweynihii hore saadilaalaha u naxariistay waxaan ku guulaystay isku darkii labadii baarlamaan oo 275 laga dhigay 550 inaan madeeyo haddii islamarkaas guddoomiye u noqdo 500 oo aan masheer qaadanaynin una lahayn 200 oo hay'adaha injineerada loo kala dhiibay 600 looga dhigay baarlamaan dadaas leh oo dhabaatadaas ku shaqaynayo yaa ilaahay ugu makariyey inaan arday guddoomiye u ahaado muddo kooban waxaan kale aan sameynay intaan aniga guddoomiye ahaa baarlamaankaasi ku guulaystay oo aniga maaragtay guddoon u ahaa inaan ansixino ku dhaqanka shareecada islaamka walaalayaal markaan idin kormaro soomaaliya waxay ku dhaqantaa waa ummad 100% islaam ah ayadoo sidaas tahay ayaa barafugaanta waxaa maaragtay dowladdii ku-meelgaarka ah lala daba kacay dowladda tabasiyad oo ilmaaniyiinta ah in dowladda la yidhaahdo oo sharafteeda meel looga dhaco waad ogtihiin ummadda soomaaliyeed 100% islaam hore islaamku baa ku dhaqantaa wax yar idin kormaraya inay soomaaliya islaamku ku dhaqanto caalamka lagu ogyahay waxaad ogaanaysiin islaamku dhagay maxadiis waxaa loola jeedaa koow horta caqiidada iyo caabudaadka ilaahay maaragtay iyo in hogaantada sunnada rasuulka taas horta la yidhahda shanta islaam iyo lixda iiman inta aaminsan yaa islaam dhab ah soomaaliya waa sidaas waxaa kale jira tacaamulka duniyada la hadla tacaamulo waxaa jira hab loo dhaqamo islaamka masalanka soomaaliya waxaad ogtihiin ganacsigeedi shirkadahooda fiiriya sida maaragtay u ganacsadaan waxay diidayaan sabir ay diidayaan qaabka shirkada ku guddo qaabka shirkada ku antaabo nidaam waxay waafaqsan tahay islaamka nidaamkaas oo lacag halaale lagu sameeyo soomaaliya waxay waafaqsan tahay xaq wax loo ijaaro xaqka halka waxaa kale ka mid ah habka irsiga dhaxalka masalanka ilaahay wuxuu yidhi yuusiikum allahu fi awlaadikum lilzakari mithlu hadi luntayayn ummadda soomaaliyeed waxay dhaxal ku qaadataa dhaxalka sidiis laba anwaac loo qaata waa casabad iyo waxaa la yidhahdaa iyo ahlulfarad la yidhahda casabada taas waay ilaahay wuxuu leeyahay yuusiikum allahu fi awlaadikum lilzakari mithlu hadi luntayayn soomaaliya saasay aaminsan tahay labada gabdhood hal wiilkaasay inay leeyihiin soomaaliya saasay ku dhaqantaa dadka iskuusleyda halka ku yeeshina walakum nisfu ma taraka azwaajikum in lam yakun lahunna waladun wa ilaahi taasay haddana dadka iskuusley saasay isku dhaxlaan qofka kalaalaha la yidhahdo oo muxadaliin ayaa aayadkala yasuukan fi nisaa'i ulaahi fi kalaala ficilin aada ku taas soomaaliya saasay ku dhaqantaa anagoo sidaas ah ayaa waxaa lalagu barafogaamay inaan nahay ilmaaniyiin si arrintaas meesha ugu baxdo baarlamaankii wuxuu go'aansaday waan hoggaan ku ahaa in ummadda soomaaliyeed ay qanacdo waxay leeyihiin shacabkii ma dowladdii ilmaaniyiin ay noqotay shacabkii shakiga kale si arrintaasi meesha ugu baxdo waxaan go'aansanay in ummadda soomaaliyeed ay ogaato baarlamaanka go'aan dhabeesoo taagan moosina la keenay waxaa la yidhi nabiya waa aniga ilmaaniyiin islaam baan nahay waxaana dhaqaato baarlamaankii si ugu fadhiistay waxaa la cansayey dalka in lagu dhaqo shareecada islaamka maalinkaasa ugu dambeysay in la yidhaahdo ilmaaniyiin
guusha ilaahay la gaarsiiyey go-aankaas aniga guddoominahay iyo ujeedadayda soodhaha iyo Usmaan Mahore iyo guddoonka ahay iyo ilmaano kale laga shaqaynaya waxaa kale ka mid ahaa go-aanada aan gaarnay oo masiiriga ah waxaa khatar galay ayadoo laga faa'iidaysanayo jilacadeedii dib burburkiinu ku dhacay waxaa isku dayey in maaragtay dhulkeena iyo badaheena khatar la geliyo maaragtay waxaa yimid in badda Soomaaliyeed khatar la geliyey oo wadahadal iyo si hoose aniga Nairobi ugu waxay arrintaas anigoo sii hayman haweenaa go-aankaan ka qaaday wadda Soomaaliyeed oo og tahay markii dambe baarlamaanka keenay arrintaas go-aan waxaa ka gaaray baarlamaankii waxaa la yidhi annaga burburtaan cidna nooguma faa'iidaysan karto dacwona naguma jirto cidii dacwo karta dacwooto maaragtay go-aanka baarlamaanka Soomaaliyeed askariskii hoostana laga soo geliyey si casri u diiday waan ogtihi taariikhda waxaan kalena sahiilay shuruudo aad u badan oo dadka muhiim u ah waxaan kale maaragtay runtan si mudan dib u howlgelintii xarunta baarlamaanka maanta aan ku shaqsanahay waxaa jirtay walaalayaan idiin sheegaya meeshaan waxay ahayd maagaya hoolo qabdigooda iyo meel lagu qaaro iyo meel aan la dhexmari karin markuu baarlamaanku waayo meel u fadhiisto naftaan uqornay annagaa qashankii ka raacnay 3 bilood ay u qaadatay sida hadda uu yahay inaan soo gaarsiino keliya waxaa laga bedelay kuraastii iyo dirkada banaanka ku wareejiyey waagaas anaga intaas yani waxyaalaha ka madaxa baarlamaanka go-aanka aan qaadanay waan hogaamin inay ka mid tahay waxaan kale arrintaas waagaas ka mid ahaa isfaham oo runtii aad qaali u ahaa oo hadda heeraa la hadlaya guddoomiyihii hadda heerta iskaca jiray hadda hesiis baa ka dhigay waa qisista xarunta in loo geeyo codsiga dowladda Turkiga oo aniga ku aadintay iyo waqtigeyga Turkiga codsigaas aniga geeyay waan ka soo fahmay waxay yidhahdeen waan imaan doonaa sidii aad dheeratay arrintaas hadda dhamaystakeed waxaa ku guulaystay guddoomiyihii hadda ka saajiray aad ugu mahadsan yahay taasna isfahamkeed koow anagaa soo barnaamay mucaamala gaarnay ka mid tahay walaalayaal waxaa kale rabaa inaan idiin sheego markaan wasiirka garsoorka ahaa hay-adda hedeeka garsoorka la yidhaahdo waagaas yaa maaragtay aniga maaragtay sii andasay markaan wasiir garsoorka ahaa yaa maaragtay arrinta iyo ilaa hadda garsoorayaashii ayaga waan soo ururinaya marka muddadaas kooban arrimahaas aan ku gaarnay waxaan rabaa aragtidayda foga waxay ka taabanaya basira iyo waajibisan walaalayaal aniga waxaan rabaa aragtidayda ansaahinta shuruucda horjebinta leh dan ku leh inaan ku degdegno oo aan degdeg haddii aad ii doorataan inta aan maanta idinka codsaday hilkaan u taaganahay oo aan maanta idinka codsaday walaalayaal haddaad ii doorataan waxaan u howlgalayaa adigoo xildhibaanada iyo sharafta leh taladooda ku dhaqmaayo in maaragtay shuruucda horjebinta leh oo qaarkooda dhan inoo yaalaan inaan degdeg u dhamayno waxaan kale rabaa inaan idin kala tusiyo dalka mid walaalayaal ma ahaan karo asigoo kumeelgaarka ka baxay dastuurkiisi kumeelgaar ma ahaan karo dastuurkaas inuu noqdo dastuur dhamaystiran oo aqlihiisi u dhanaan dhamaystiran inuu noqdo dhisida waxaan isku dayayaa waxaan rabaa dhisida inaan maaragtay u hoggaamno federaaleen iyo dimuqraadiyadda dalka inaan u hoggaamno yaa idinku hoggaami doona haddaad ii doorataan dhisida maaragtay gudbiyada madaxa bannaan ee dastuuriga ah oo inoo harsan in la dedejiyo waa idinku hoggaami doona haddii ilaahay ila ii doortaan guddiga adeega garsoorka oo baarlamaanka miisaaniyadiisu madaxa bannaan uu yeelin la-yahay taas waxay idinku hoggaaminaya haddaad ii doorataan siday ugu dhaqsiban guddidaas in la magacaabo si baarlamaanka u madaxa bannaanado miisaaniyadii taas maaragtay walaalayaal waxay ku midataa hirgelinta iswiida siyaasadeed maaragtay inaan ku filaano go-aanka gaarida maqaamka caasimada oo noqotay la dhaqaajin waayey intaasoo sano waxaa haddaad ii doorataan qodobada maaragtay waxaan maaragtay ku dadaalaynaa sida ugu dhaqsi hadalan caasimad maqaamka in la wadaajiyo walaalayaal waqtigaa maaragtay wixii aan soo diyaarsaday waxyaalaha iga dhaman xariirka ahaan inaan shaqeyno anigii waa sareen agabka sare shacabweynaha xariirkiisii waxyaalahaas raacsaday inaan ku dadaalo haddaad ii doorataan waxaan ku soo koobayaa warkaa iga maaragtay guddiga amarkii dadka hogaasimaha umar adkeysanaya waxaan rabaa waxaan idinka codsanaya labaatan sharafta leh maadaama adkeysida iyo waayo-aragnimadaas waxyaalaha maaragtay aan ku jeedo wixii waagaan iyo duubeerta ii muuqdaan oo aan is leeyahay baarlamaan madaxa bannaan ee isbedle
dadkan hogaamin kara oo maqaamka dowladnimada qarannimadeeda sharafteeda soo celin kara inaan hogaamin karo maadaamaan aaminsanahay waayo aadamadeeda khibradan ilaahay siiyey inaad igu roonataan qalinkiina aad i doorataan si sharafteeda igu noqoto aan uga tartamo baarlamaanada caalam aad iyo aad u raasiy wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsan yahay musharaxa qofka xiga bismillahi rahmaan rahiim waa mahadsantihiin waxaan rabnaa inaan u wacno musharaxii inoogu dambeeyey xildhibaan idris cabdi taftar falyatafadal isaga ayaa noogu dambeeyey khudbadii maanta jeedinay mahadsantihiin الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه جمهورية فدرالية الصومالية قراء شعب الصومالية في حياة قدوميها برلمان فدرالية الصومالية اللي معنا برلمان فدرالية الصومالية تيجي دورتنا برلمان الصومالية صحافة الصومالية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shalay toban ayaa loogu talagalay 9 daqiiqo ku dhameynaya intiina dhegeysiga iyo fura mudanayaal marweyn waxaa sharaf iya inaan hortiina soo istaago oo aan idin weydiisto kalsooni aan idin soo bandhigo inaan ahay musharaxa u taagan xilka afhayeenka baarlamaanka soomaaliya marka xiga waxaan idin ka codsanayaa inaan halkan idinku soo gudbiyo TV-gayga ama taariikh nololeedkayga anigu magacayga waxaa la yidhahdaa idris cabdi taftar waxaan dhashay 1965 haddaan ka waramo xeerka waxbarasho waxaan bartay cilmiga beeraha dhirta daaqa iyo deegaanka waxaan haystaa shahaadooyin kala duwan oo digri ah taariikhda shaqa waxaan soo qabtay haddaan ka bilaabo xilligii aniga laisoo dooranaya xildhibaanka maalmo kahor ayaa waxaan aan xil ku hayay gudoomiyaha jaamacadda jubbada saraan ahaa la taliyaha wasaaradda beeraha iyo waraabkaan ahaa 2015 waxaan ahaa la taliyaha dhinaca wax soo saarka beeraha hay-ad maraykanka fadhiso oo la yidhaahdo ergo ayaa waxaan u ahaa la talin oo dhinaca beeraha 2011 ilaa 2012 waxaan u shaqeeyey hay-adda cuntada beeraha FAO 2010 waxaan la shaqeeyey hay-ad la yidhaahdo Somali agriculture technical group 2008 waxaan u shaqeeyey hay-ad la yidhaahdo solidarity care relief 1999 ilaa 2007 waxaan ahaa madaxa beeraha hay-adda World Vision 1995 ama 1995 kaaliye sare oo horumarinta hay-adda UNDP OBS iyo IFAD ayaan ahaa 1994 waxaan ahaa shaqaale isku xidha bulshada iyo wacyigelinta waxaan u shaqeynaya hay-adda UNICEF 1992 kaasoo kale waxaan u shaqeeyey hay-adda yidhaahdo Consent waxaan ahaa madaxa beeraha ee Consent 1990 wixii ka dambeeyey xilligii dowladda dhexe waxaan ahaa madaxa fidinta degmada jarladka ka shaqeynaya dhinaca daadka qaabilsanaa wixii tababaraan soo qabtay dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxaan ka haystaa shahaadooyin aad u fara badan dhinaca tababar waxaan soo qaatay la yidhahdo adkeysiga aafooyinka tababar waxaan soo qaatay manhajka isbedelka cimilada oo lagu qabtay waddanka dibadiisa waxaan ka qayb galay doortooyin ku saabsan yareynta khatarta masiibooyinka xirfadda kormeerka iyo maareynta fidinta oo lagu qabtay Nairobi qaab ku wanaagsan tababarka beeraha la qabtay maareeyaha fidinta iyo xirfadaha beeraha kormeer ama maxaa la dhahay tababarada ay bixinayaan beeraleyda ayaan macallin ayaan u ahaa laysoo tababaray tababaradii haddaan halkaas aan ku tago shaqada dheeri aan qabtay inta aniga aan hay-adahaas ku shaqeynayo waxaa ibarbar socday aan qabanayay waxaan furay xarumo agoon aan furay waxaan ahaa nin tababaran ahaa awal oo lagu xanaaneeya carruurta agoontaan furay waxaan hore usoo qabtay xilliyadii macluusha goobaha 1991 xilligii Soomaaliya oo maxaa la dhahay la dhihi jiray maxaa la dhahay madiinatul quds meelo la dhihi jiray ayaa waxaan furay fiilada tiro badan ayaan ka furay iskayga ka furay markiisa hay'ado badan ay yimid waxaan kaloo furay xafiis la yidhahdo legal aid kaasoo shaqadiisa ay tahay sidaas u warqabtaan burburkaas u dhacay Soomaalida maxaa la dhahay dad badan guryahooda laga haystay beerahooda laga haystay waxaan furay hay-ad oo garyaqaana
xildhibaanada sharafta leh waxaan xilkaan isku soo taagay inaan noqdo afhayeenka golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay tahay baahida shacabka Soomaaliyeed uu qabo inuu helo hoggaan umadeed oo cadaalad ah kana gudbiya marxaladan aad u dhib badan uu shacabka Soomaaliyeed ku jiro loogala saari lahaa kalsooni darrida iyo dowladooda ay ku qabaan xildhibaanada sharafta leh sharafta badan waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed oo raba in shacabka Soomaaliyeed ku noolaadaan nolol sharaf badan oo la mid ah kan dunida ku nool oo kale taasina waxaa lagu gaari karaa marka la helo hoggaan umadeed oo ku habiya sharafta ay ummadiisa leedahay mudanayaal iyo marweyn waxaan ahay shaqsi ku cusub golaha shacabka waxaana markii labaadaan ku soo taago xilka gudoomiyaha baarlamaanka anigoo ka shidaal qaadanaya in uu isbedelka shaqaynaya waxaa loogu kordhiyey baarlamaanka sharafta leh waa waxaan rabo inaan u noqdo afhayeenka golaha mudane muddadii halka sana iyo bare aheyd ee aan ka tirsanaa baarlamaanka waxaan arkay inay naga baqan yihiin howlo badan uu baarlamaanka qaban lahaa oo gaabisa una baahan in laga gudbo haddaba anigoo og in golaha uu hor yaalo shaqooyin tiro badan oo ay ka mid yihiin dhamaystirka geedi socodka duweegista dastuurka hirgelinta nidaamka xisbiyada badan iyo doorashooyinka qof iyo cod dibdhista hay-adda amniga iyo dibhabaynta dastuurka dhamaystirka guddiyada qaran la dagaalanka musuqmaasuqa dhamaystirka shuruudaha kale ee dalka inta laga gaaray 2020 duweegista xeer hoosaadka baarlamaanka iyo wada shaqaynta aqalka sare ee golaha shacabka iyo dowlista dalka u yaala iyo shuruucaha intaas in ka badan waxay u baahan yihiin in golaha uu helo hoggaan ku istaaga si cadaalada loogu hogaamin lahaa codka shacabka oo aad idinku matashaan aan ahayn wax shaksi keliya ama kooxaysi lagu maamulo waxaa loo baahan yahay nin karti leh iyo geesinimo leh oo ku difaacaya shuruucda dalka mudanayaal marweyn waxaan ka shaqayn doonaa wadajir golaha shacabka sidii aan u milayn lahaa iyadoo marka laga reebo shacabka Soomaaliyeed golaha shacabka isaga laga bilaabo dibeysiintaba si shacabka Soomaaliyeed u gaarsiiyo dibeysiintaba sidii loogu soo dabaali lahaa ummadda colaadda qarniga ku dhowaad ay haraysay haddii aad ii doorataan xilkan waxaan dib u habayn doonaa guddiyada baarlamaanka qaar ka mid ah anigoo u raadinaya cidda aqoon ahaan wiil kasta hawsha shaqo ee kale waxaan xoojin doonaa la xisaabtanka xukuumadda waxaan baarlamaanka federaalka samayn doonaa la xisaabtan dhab ah iyadoo shuruucda loo mari doono iyo in shacabka Soomaaliyeed u keeni doono qofkii aan xilkiisa gudin si dhab ahna loola xisaabtami doono haddii aad ii doorataan xilkan waxaan baarlamaanka sharafta leh ku hogaamin doonaa ajendooyinka sida ay u kala horeeyaan oo jadwalaysan inaan ku hogaamiyo ajendada inaanan ku hogaaminin ajendada aqalka ka soo geli doono uusan jiri doonin haddii aad ii doorataan xilkan waxaan baarlamaanka sharafta leh ku hogaamin doonaa la tashi labadayda guddoomiye ku-xigeen iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddiyada baarlamaanka iskamana gaari doono go-aan kelinimo ah iyadoo golaha shacabka uusan u coday haddii aad ii doorataan xilkan waxaan baarlamaanka sharafta leh ku hogaamin doonaa in mas-uuliyiinta sare ee dalka ay ku shaqeeyaan wixii uu dastuurka farayo laguna xadgudbi karin sharciga dalka waayo waddan aan sharci ku dhisnayn ma noqon karo dowladda mabdaha dowladda waa saraynta sharciga dalka u yaala haddii aad ii doorataan xilkan waxaan baarlamaanka sharafta leh ku hogaamin doonaa in lay waafajiyo shuruucaha dalka kuwa dowlad goboleedyada iyo federaalka taasoo horumarinayno dastuurka dalka mudanayaal marweyn baarlamaanka sharafta leh waxaan ballan qaadayaa in shaqaalaha dowladda iyo ciidamada qalab dhammaan aan u raadiyo xuquuqda maqan taasoo aan la xisaabtami doono wasaaradaha shaqada ku leh si loo horkeeno golaha shacabka mudanayaal marweyn xildhibaanada sharafta leh waxaan ballan qaadayaa inaad heshaan xuquuqdiina mushaar 28 intaan la gaarin bisha bil walba tan kale waxaan hagaajin doonaa xidhiidhka wada shaqeyn ee hay-adaha dowliga sida kale haddii xilka aan qabto waxaan soo gudbin doonaa wixii hanti aan leeyahay waayo waxaan rabaa inaan maalinta aan ka tegayo shaqada si dhaba ila xisaabto waxaan ilaahay ka baryaa inuu waafajiyo hoggaanka baarlamaanka federaalka Soomaaliya sideeda Soomaaliya cidna uma maqna ceelna uma maqna anna cidna ima maqna ceelna ima maqna hadda waxaan ahay qof isbada ee aan cidno wadin waayo waxaan hortayda yaalla maalinta qiyaamo qaasi aan u taabtay ummadda Soomaaliyeed walaalayaal aan badbaadino sharafta baarlamaanka cadaaladda xildhibaanka ay leeyihiin inaan difaacno iyo inaan qaranin
xildhibaanada waa igu qaldanaa waa igu rumlaaya boosika keentaan maalinta ay doorata haddaan boosik keentaan waxaa waasixinayaan waa horteynaya baarlamaanka walaalayaal ilaahay maan idinku daashee waxaa doorta qof ilaahay hortiisa balanigi ku kala doorta doorta cid allaala ciddii qaranka soomaaliyeed sumcadda baarlamaanka uu leeyahay ilaalin kara doorta 2017 haddaad xasuusataan bisha Febraayo 28 doorashadii madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa caalamka iyo bulshada Soomaaliyeed u muujisay inaanu nahay baarlamaan qura oo matali kara bulshada Soomaaliyeed taas ku lamid ah baanu rabnaa inaad maanta tuftaan bulshada Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed iyo bulshada caalamka walaalayaal doorta cid allaala ciddii qaranka Soomaaliyeed hadda baarlamaanka uu leeyahay ilaalin kara walaalayaal doorta cidaad u aragtaan inay badbaadin karaan baarlamaanka Soomaaliyeed waxaad haysataan ammaanadii shacabka idinsoo doortay ee ammaanadaas ha dayacina haddii aad doorataan kursigan hadda uu sihayaa uu ku yahay guday aan rabo inaan ku fadhiisto maalinta talaadada waxaa waa idin duceynaya insha allah waxaan rabaa inaad waxaana ka hor imaanaya wax walba oo dulmi ah oo la samaynayo hadday maxaa la dhahay dulmi maahan la hor istaagaya waxaan difaacayaa sharafta baarlamaanka waxaan u shaqaynayaa shacabka Soomaaliyeed hadalkayga meeshaasaan kusoo koobaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وما تنتهي خطبتي بعد